waxa igu kalifay wadankan Mareykanka aan ku noolahay oo wadan dii aad la timaadid fursad aad ka faa'iideysan kartid wadan horumar lagu gaari karo marka fursadii aan helay darteeda waxaan ku fakaray wax qiimo leh oo lagu wada manaafacaado in aan maaragtay ku xisaabtamo oo miiska soo saaro markii kugu horeysay sooskan aad soo bandhigtay fikradiisu xagee kaaga dhalatay ma aqoon baad u lahayd horta sideedaba markayga horeba waxaan ku fiicnaa cuntada iyo ganacsiga iyo waxaas oo dhan waan ku fiicnaa marka xigtana wadankii markaan joogay baan ka shaqayn jiray inaan wax sameeyo oo maaragtay business person aan ahaa waxa igu kalifay in aan maaragtay aan production kan soo sameeyo saddex arrimood wadankan oo wadan opportunity kow number 2 meeshii aan ka imid oo baahi iyo dhibaato ka jirto oo caruur badan iyo dad badan ay rafaadsan yihiin oo in wax loo qabto loo baahan yahay isla markaana wax qabadkii aanan ku qaban karin shifti caadi oo tunno ay dadkeeni ka fein karin iyo midda saddexaad anigiyo wax sameyn kara oo isu arkay inaan maaragtay wax abuuri karo marka saacadiya soo sidee baad ku samaysay oo fikradan imika watan quruuradaha ay ku jirto iyo dhaloonka ay ku jirto saacadiya soos baa ku qoran marka fikradaas isay ku timid fikradaas wallahi waxay ku timid waxaan ku bilaabay gurigayga jikadaydaan ku bilaabay shayir ku sameeyo oon maaragtay dhalooyinkaas ku shishubo research badan ayaan sameeyay oo maaragtay aan ka fakaray inaan maaragtay waxan inay soconayaan in kala waqti dheer baan soo waday kadibna waa ku guuleysay laakiin fikradda gurigayga aan ka bilaabay inaan maaragtay dhalooyinkaas aan ku diyaariyo marka gurigaaga ku diyaarisay inaad suuqa Mareykanka gasho sidee bay u sahlanaatay oo alaabadaada la gato oo la dhadhamiyo oo si halkee loo amaano waxaan ka bilaabay markaygii hore suuqyada banaanka la farfariisto sidii waratalaydi Soomaaliya dhulka cuntada la dhigdhigo ama miisaska yareer inta la dhigdhigto wax lagu bilaabo miis yar oo isku laabmaya ayaan ka bilaabay inaan suuqyadaas free farmer market ka shahaado yar laga soo goostaa intaan shahaadadii u soo goostay ayaan maaragtay gurigayga waxaan ku sameeyo aan la tagay maalintii ugu horeysay 4 kartoon oo min 12 dhala kartoonkiiba baan la tagay anoo sooman dadkii baan dhadhansiiyay oo sambalkii sameeyay dadka cadaanka ahaayee xaafadda yar deganaa baan ku bilaabay kadibna waxaan ogaaday waxaan wax soconaya inay yihiin oo gadmaayaan 4 kartoon isla 2 saac gudaheed waa la iga dhameystay maalintaas waxaan ogaaday inuu productigan meel fiican gaari karo marka maxaa samaysay marka maalinta wixii ka dambeeyay waxaan sameeyay jiko u samaysan inaan wax ku sameyn karo oo certify dawladda ayaa ii sharciyeysay inaan ku sameyn karo tasfiye badan iyo imtixaano badan markay iga qaadeen kadib waa ku guuleystay kadibna waxaan sameeyay in aan soo diyaariyo amount fiican oo aan maaragtay farmers market-ki xaafadba maalin aan geyn karo ilaa 600 ilaa 1000 dhalo ilaa 2000 oo dhalo saasaan u waday ma garan marka 20 ka dhalo waxay isu bedeleen inay company weyn noqdaan shirkad weyn inay noqdaan suuqa lagu gado alaabooyinka in lagu gado sidee u sahlanaatay waxay u sahlanaatay fikradii markay weynaatay oo aan arkay dadkii rabay productiga inay bateen kadibna waxaan aaday warshad ayaan raadiyay samaysa productiga oo contract aan la galay warshadii ayaa hadda sameeyay marka hadda waxa aan sameeyo warshad ayaa maaragtay heerkeedii ay maraysaa waxaan hadda aan guri ku sameyn karo ama jiko ku sameyn karo way ka balaadeen garan company-gu marka halkee buu marayaa hadda suuqiisu waa sidee wallahi walaalo suuqiisa aad buu u weyn yahay waxa igu kalifay inaan share ka sameeyo ilaa iyo 60,000 oo dukaan company gaaraya ayaa hadda diyaar noo oo Mareykanka nationwide waxay rabaan inay ku bilaabaan 25,000 oo dukaan marka waxa iga xayiray in aan maaragtay lacagtii domainkii aan ku balaarin lahaa ayaa iga xayiray marka waxaan ku fakaray inaan share iskado anigoo ka cararaya bangiyadan ribadooda iyo maaragtay interestkooda marka sharkii meeqad gadaysaa walaala sharkii waxaan gadayaa 10,000 company-gu marka la qiyaaso miisaaniyadiisa intee uu hadda gaaraya intee leeyahay wallahi 20 milyan lagu qiyaasay company-ga 20 ilaa iyo 100 milyan inuu u dhaxeeyo ayaa lagu qiyaasay miisaankii